dalkeena waxaa soo maray caqabado dhaqaale oo mug leh oo saameeyay bulshadeenna iyo kobaca dhaqaalaha fursadaha shaqo horumarka ganacsiga iyo adeegyada asaasiga ah ayaa waqtiyo badan ku yaraa dad badan oo Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee halkii aan ka eegan lahayn caqabadaha waxaan doorannay inaan xal u raadino maalgashiga bulshada waa furaha horumarka waxaana aaminsannahay in la garab istaago beeralayda xoolalayda ganacsatada iyo dhallinyarada waxbarata si loo abuuro mustaqbal ka wanaagsan kan maanta bangigu wuxuu aan maalgashi ka qaatay dhowr jeer marka hadda ugu dambeysay beer ayaan maalgashaday waxaan dhaqdaa xoolaha lo'da iyo idaha aad baan uga mahadcelinayaa iyagana maalgelintaas ganacsigaygu waxa weeye dharka ciyaalka iyo waxaan gadaa dharka dumarka waxay isiiyeen maalgelin bay isiiyeen maalgelintaana waan ku shaqaystaa maasha Allah waana ku faa'iiday horumar waa ku gaadhay waxa la maalgeliyay farmashiyaasha adaraan tilmaamayo ayaa la maalgeliyay aad baan uga faa'iiday waxaan ahay dadka fursadihiisa maalgelineed ka faa'iidaystay waliba xilli uu u baahan yahay waxaa jirtay Allah u naxariisto hooyaday oo jiran baa waxay taalay guriga labaad u baahneed koronto ku socda runtii korontadu waxay aad u qiimo badneed waxaan go'aansanay inaan uga baxno solar system ka laftiisa dhaqaalihiisa aad markaa u badnaa ilaa 14 kun ahaa cidaan ka helnay waxay ahayd Sombank wuxuu u taagan yahay sidii uu door muuqda ugu yeelan lahaa kobcinta dhaqaalaha iyo dhismaha bulsho horumarsan waa waajibkeenna inaan bulshadeenna gacan ku siino inay gaaraan himilooyinkooda annagoo u marayna maalgashi waxtar leh oo gaaraya dhammaan qaybaha bulshada waxaan nahay qayb ka mid ah horumarka dalkeenna Sombank wuxuu aaminsan yahay in horumarka bulshadu uu yahay mas'uuliyad wada jira waxaan ku faraxsannahay inaan garab taagannahay dalkeenna iyo dadkeenna. Now we have watermelon almost 8,000 pieces and that money which we used to produce that watermelon has come from Sombank, so we really thank Sombank for all the services they are doing us. The T Plus app is very good. It helps me a lot, especially sending money to my relatives back at home in Kenya. I use the M-Pesa part of it and it's very, very efficient. Their service is good, their exchange rate is always stable, so I would love to thank them for all their services. beeruhu waa lafdhabarta dhaqaalaha waxaan taageernay beeralayda si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda una badbaadiyaan jiilasha soo socda waxaan si xoojin leh u maalgelinay xoolalayda si ay ugu helaan fursado wanaagsan suuqyada gudaha iyo dibaddaba waxaan taageernay ganacsiyada yaryar iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ee lafdhabarka u ah bulshadeenna waxaan maalgelin iyo adeegyo maaliyadeed siinay ganacsiyada waaweyn annagoo gacan ka geysanay kobcinta dhaqaalaha iyo abuurista shaqooyin cusub maalgelin buu siiyay maalgelintii dukaankaygaan ku maalgashaday waa ku shaqaystaa maalgelinta run ahaantii aniga marka hore igu horeysay lacag $10,000 aan ka dalbaday dukaan waa iifnaa lacagtaas badan guriga ku dhistay isbitaalada iyo xarumaha caafimaadku waa udubdhexaadka bulshada waana sababta aan u maalgelinay caafimaadka si loo hubiyo in bulshadeennu ay hesho adeegyo caafimaad oo hufan runaantii waxaan aad ugu faraxsanahay xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya isbitaalka Al-Caasima iyo bangiga weyn ee Sombank. The hospital needed to expand into a new wing and we approached Sombank Limited. They financed our new wing in partnership with Gargara Company and we are very thankful for this financing because now we are able to serve our community and we expanded into maternity, childcare and specialized need. Thank you so much. waxaan si joogto ah ugu heelannahay waxbarashada annagoo taageernay jaamacadaha iskuullada iyo barnaamijka waxbarashada sare si dhallinyarada dalkeennu ay u gaaraan yoolalkooda
bangiga Sunbank iyo annaga waxaan ka dhexeeyay xiriir wanaagsan iyo macaamil wanaagsan iskuulku wuxuu isticmaalaa financial ahaan wuxuu isticmaalaa bangigaas maaliyad ahaan wuxuu isticmaalaa qaabka maaragtay maaliyadda u mardo maaragtay mushaarka macallimiinta iyo barnaamijka oo dhan wuxuu maraa xawaaladaas maxaa bangiga Sunbank uu maraa macaamil fiican baa naga dhexeeya investment bay maaragtay iskuulka u sameeyeen waxaan tababar xirfadeed iyo mid ganacsiba u samaynay in ka badan 2,000 oo dhalinyaro ah waxna ku bartay jaamacadaha dalka annagoo sidoo kale u maalgelinay fikradahooda ganacsi iyadoo yoolkeennu uu yahay inaan soo saarno kumanaan dhalinyaro oo ganacsato ah korna u qaadno shaqo abuurka dalkeenna barnaamijkan waa ka dhabaynaynaa haddii lahayd ma kun ardaygan kunkan arday waxaan rabnaa inaan gaarno inta sanadka ka hartay maybe sanadka dambe waxaan keeni doonaa 5,000 sanad ku sii xiga 10,000 appetite-kiina ku xiran tahay idinku ha daalin anaguna daalimayno waxaan kaloo gacan ka geysanay horumarinta kalluumaysiga annagoo ka caawinayna kalluumaysatada inay kordhiyaan wax soo saarka iyo tayada kalluunka Sunbank waa saaxiibka horumarka waxaan u taagannahay inaan abuurno fursado horumarino bulshada oo aan sare u qaadno nolol wanaagga dadka Soomaaliyeed waxaan nahay Sunbank bangiga bulshada Soomaaliyeed